waxa aad iyo aad baraha media lagaga doodayay oo la lahaa Somaliland si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay calankii baa loo dhigay muxuu ahaa kale aragoodan waa kii Maxamed Kaahin markii uu yimina yiri maamul goboleed hada la nagu sheego wax alla wax ka jira ma jirto okay barka dootna in European Police dul taagayna number 1 horta waxaan doonayaa inaan idin tuso calan la dhigo oo lagu soo dhaweeya wafdi Somaliland ama madaxweyne Somaliland maanta ma ugu horeyn daahir riyaala sida darkaysa wafdigiisu uu hogaaminayay airport markuu ka soo degay calanka Somaliland keligii muu taagnayne isagoo calamadii caalamka oo dhan buu ka dhex bilbilaya isagoo wasiirkii Ethiopian kuna uu soo dhaweeyay wadarkaysan Google kaanad wax way maalinta ay airport-ka Egal airport Hargeysa ay ka soo degtay laga soo dhaweeyay marka waxa weeyaan maxay hadiyaan u qaadanin guul calankeeni baa meel laga taagay waxa aynu doonaynaa inay ogaano war calanka iyo waxaas wala dadka wala iskaga soo dhaweeyay nuxurku waa maxay nuxurku waxa weeyaan number 1 sanad iyo bad oo albaabku ka xidhnaa ba maanta horta laga furay marka loo eego maxay madaxweyne daahir riyaala saddexdii biloodba wuu tagi jiray ra'iisul wasaaraha Ethiopia way wada shiri tan waxa weeyaan maxay darkaysa waxa weeyaan statement-kii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia dawladda marka labada waxa la isticmaalay waa maxay maamulka Somaliland oo aqbalay inay dawladda federaalka ee Soomaaliya la shaqeeyo marka waxa weeyaan su'aasha imika la isweydiinaya waxa weeyaan number 1 19kii bishii June buu madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka dhoofay Egal airport isagoo huwan sharaftii iyo maamuuskii qarannimada Somaliland shalay oo jimco ahayd 22kii bishana wuxuu ku soo noqday isagoo magacii maamul Somaliland uu ku soo celiyay maxaa isagoo huwan oo xambaarsan oo waliba wasiirkeeni daakhiliga ina Kaahin uu ku faanayo leeyahay maxaa ka macna mudane Muuse Biixi Cabdi inuu noo cadeeyo miyaynu tuurnay qarannimadeeni miyaynu qaadanay maamul goboleed goormaynu wada shaqayn yeelanay